بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. run ahaantii maanta waxaan isweydiiyey su'aal macquul ah. Waxaa laga yaabaa su'aashan inaad adigu marar badan isweydiisay, balse aad garan weydii wax kaaga jawaaba. Laakiin su'aashan aniga ayaa jawaabteeda ku haya. Su'aashu maxay tahay daba? Su'aashu waxa weeye 100 sano ka hor markay dadku wada xiriirayaan, waxay ku qaadan jirtay dadku inay wada xiriiraan ama se ay wax isu diraan ugu yaraan 3 maalmood. Sidaan wada ogsoonahay, faraska warqadda ka qaada magaalada Garowe ee geynaya magaalada Laascaanood ugu yaraan waa in jidka ku sii jiraa 8 saacadood ama 9 saacadood. qaabkaas ayaa waagii hore xogta la isugu gudbay jiray, balse maanta wada ogsoonahay qof haddaad u baahato inaad la xiriirdo kaliya waxa ka xiga inaad taleefankaaga la soo baxdo kadibna aad qofkii wacdo in shay la gaadhaa, yacni horumar la gaadhaa waa wax iska fudud. laakiin waxa xun inaad adigu garan weydo waxaan sirta ku dhex gadaaman ama sirta ku dhex jirtaa maxay tahay. runtii waxaan isweydiiyey qofka markaad wacdo adigu taleefankaaga qofka wacdo wicitaankiina xaguu aadaya, qofka kale si ugu tagaya, codkaaga see loo qaadaya oo loo geenaya meel ku jirta 200 kilomitir. run ahaantii waa su'aal isweydiin mudan. soo dabcan saamaha daawade waa su'aal isweydiin mudan. adigana waxaa lagaa doonayaa inaad isweydiiso dabcan wax kastoo aad aragto inaad iska weydiiso. waxaan ogaaday qofka markaad wacdo taleefankaagu wuxuu dirayaa signaalkani waxa uu baxayaa isagoo koronto ayuu baxayaa. bal waxaad la fiirsataa ama aad la eegtaa signaalka ka baxaya taleefankaaga isagoo koronto ee ku dhacaya ateenada kuugu dhow xoog inteen eg mudee. waxaa la yaab leh signaalka adiga ma kaa dhex bixi karaa? dabcan wuu kaa dhex bixi karaa. signaalkaasi waxa uu ku dhacaya ateenada kuugu dhow. ateenada kuugu dhow marka uu ku dhacana waxa uu haddana ku sii dhacaya ateenada ku xigta. waxa uu haddana ku sii dhacaya ateenada ku xigta. shaqada ayaa fulinaya lawasaar isweydiin mudane. shaqada waxaa fulinaya fiber optic ama cable ama xadhig baa fulinaya. ateenadaasina waxay ku sii dhacaysaa ilaa ateenadii laga gaadho qofkii aad wacasi u joogay. ateenadaasi markay gaadho qofkii mobilkiisa sameecada dambe iyo sameecada hore, dabcan waxaad maqashaa Soomaalida dhahaan sameecada dambe ama sameecada gudaha iyo sameecada hore. sameecada dambe ayuu ka soo gelaya codkii oo signal ayaa soo gelaya. haddaba waxa isweydiin mudan yaa bedelaya codkaagii yaa bedelay isagoo electric meesha soo gala. mobilkaagu wuxuu leeyahay microphone-kaasi shaqadiisu wax kale ma aha. waxa weeye inuu codkii ka bedelo, inuu codkii u bedelo signal, hadhowna uu codkii signalkii ka bedelo oo uu ka dhigo cod caadi ah. signalkaasi markaa wax nooc ma isagoo wax nooc ma u baxaya. dabcan waxaa jirta luqad ay kombiyuutarada iyo mobiladuba wada adeegsadaan. luqadaas oo loo yaqaano binary ama waxa loo yaqaano 1 iyo 0. dabcan markaa waxa uu soo gelaya isagoo 1 iyo 0 isla markaas ayuu bedelayaa. macnaha 1 iyo 0 marka la bedelayo waa arrin kale oo u baahan in xalqad kale iyo meel gooni ah in laga shaqeeyo. laakiin muhiimaddu waxa weeye mobiladu dabcan marka aad doonayso inaad qof wacdo qaabkaas u shaqeysaa. run ahaantii waxaan filayaa inaad maanta ka buuxda ka qaadatay seebuu u shaqeeyaa taleefanku, seebuu koolku u dhacayaa, seebuu u baxayaa koolku, seebuu yacni uu qofkii u gaarayaa codkayn. dabcan waxaan filayaa maanta inaad xoog buuxda ka qaadatay. haddaba saaxiib, waxaan si sharaf ku dheehantahay kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saarto. dabcan sooma qalmayn inaad like saarto. hadda adan kula hadlayaa insan u qalmin wuu qalmaa dabcan. markaa insha allah waa mahadsantahay saaxiib.